ما بدون ياني إنو دولة دانو howlgallada amniga lagu sugayo waxay u socdaan si habsami ah intay howlgallada socdeen maalmahan la soo dhaafay waxa la fashiliyay falal badan oo argixisada soo maleegeen oo isku jiraan dilal qorsheysan qaraxyo gawaari loo adeegsan lahaa weeraro la damacsanaa bartilmaameedyo shacab iyo kuwa dawladeedba hadda si gaar ah u sii warbixiyo howlgallada iyo wixii lagu soo qabtay maanta taariikhdu tahay 6 bisha afraad 2019 ciidamada amaanku waxay deegaanka ceelasha biyaha ku soo qabteen hub aad u fara badan oo isku jira suumanka qarxa rasaas bambooyin miinooyin maadooyinka qaraxyada laga sameeyo hub fudud iyo mid culusba hubkan aad u fara badan wuxuu ku aasnaa god aad u weyn oo dhulka hoostiisa ah waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa kaydka ugu weynaa oo hubeed ee argixisada al-shabaab ee ka howlgala Muqdisho iyo nawaaxigeeda howlgallada hadda socda kuma eka kaliya gobolka Banaadir waxa maanta ciidamada booliisku howlgallo lagu fuliyay degmada Afgooye lagu soo qabtay 35 eedeysana shabaab ah sidoo kale deegaanka Sabiib waxa lagu soo qabtay ilaa 14 qof oo sidoo kale ku eedeysan al-shabaabnimo sidoo kale ciidamadu amniga waxay gacanta ku soo dhigeen mid kamid ah rag argixisada u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa ee gaadiidka lagu dhijiyo waxaana hadda lagu hayaa baaris kadibna waxaan soo la tiigsan doonaa sharciga waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo ciidamada la wadaagay xogta ku saabsan hubka iyo dadka la soo qabtaba waxay tani muujinaysaa wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhaxaysa bulshada weynta iyo hay'adaha amniga waxaan ognahay in argixisadu maalmahan dambe xoog saarayaan in waxyaabaha qarxay dadka ugu xiraan gaadiidkooda oo gaarka ah laba falo noocaas ah ayay khamiistii jimcihii ka fuliyeen magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya dad wax galabsanin saacada kadib ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen si ay idin sheegay rag argixisada ka tirsan u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa baawurka loogu xira baaritaan kadibna waxaan hor keeni doonaa sharciga waxa bulshada mar labaad iyo mar saddexaad kula talineynaa inay si gaar ah uga taxadiraan gawaaridooda maadaama argixisada doonayaan in shacabka iyo dawladda qasaaro u geystaan howlgallada amniga lagu sugayo way sii socon doonaan wayna sii balaaran doonaan mar kale shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinaynaa dulqaadka iyo wada shaqaynta ay muujiyeen waxaana sidoo kale xusuusinaynaa in wixii macluumaad ah ee la wadaagi karaan iyo wacaya nambarka sida gaarka loogu talagalay loogu diyaariyay bulshada ee 991 ama 991 walaalayaal aan ka wada shaqeyno amniga iyo nabadda guudba askari oo lahayn shacab wuxuu la mid yahay wiil oo waalid lahayn saas darteed waxaan mar labaad ugu bogaadinaynaa uguna baaqaynaa shacabka inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ka dhaxaysa iyaga iyo hay'adaha amniga ما بدون ياني إنو دولة دانو أيان دونين ويديجنا دردوران شري ويدانا هودا سميسان شري ويديجنا دردوران شري ويدانا هودا سميسان شري aynu dilla aynu dagaale ka digtoonaada dadka yago aynu dilla aynu dagaale ka digtoonaada dadka yago ما بدون ياني إنو دولة دهانو ayaan doonaynin وي سومالي دوليسان جيري وي قبيلك كدود جيري وي سومالي دوليسان جيري وي قبيلك كدود جيري aynu dilla aynu dagaale ka digtoonaada
dadka dadka yago aynu dila aynu dagaale ka digtoonaada dadka dadka yago ma doonayaane inaynu dawlad ahaano ayaan doonaynin kuwii gumaysigu diraan ogaa kuwii danaheenna xabaali jiray kuwii gumaysigu diraan ogaa kuwii danaheenna xabaali jiray aynu dila aynu dagaale ka digtoonaada dadka dadka yago aynu dila aynu dagaale ka digtoonaada dadka dadka yago ma doonayaane inaynu dawlad ahaano ayaan doonaynin kuwii ubadkoodu inkaari jiray kuwii ardadeenna ka oohin jiray kuwii ubadkoodu inkaari jiray kuwii ardadeenna ka oohin jiray aynu dila aynu dagaale ka digtoonaada dadka dadka yago aynu dila aynu dagaale ka digtoonaada dadka dadka yago aynu dila aynu